wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij cusub aan idinkuga talagalay. muxuu noqon doonaa maanta barnaamijka iyo codkaygu saan u weynaaday waa laba sheeko oo kale. waa tahay markana waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo toddobada same magacyadooda iyo astaamahooda. kusoo dhawaada barnaamijka. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu abuuray shay kasta isagoona ka abuuray biyo. waxa uu allah ku leeyahay qur-aankiisa kariimka sida taasi. allah waxa uu abuuray waxaa ka mid ah samada aan aragno, weliba waana samada koowaad ee ugu horeyso samooyinkaan aragno, waxaana kasii saraysa 6 samo oo kaleeto. 7 samo ayaana laisku yiraahdaa. magacyadooduna haddeer ayaan bilaaban doonaa iyo wax ay ka samaysan yihiin oo markaasi astaan oo u gooni ah. 7 samo mid walba waxay u gooni tahay astaan. haddaba samada ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa waana samada ugu hooseysa ee aynu ku aragno adduunka, waxaana loo yaqaanaa raqiic, waxayna ka samaysan tahay qiiq. halka samada labaad iyaduna lagu magacaabo ama magaceeda la yidhaahdo qayduum oo ka samaysan midabka naxaasta. samada saddexaad iyaduna waxaa lagu magacaabaa magaca alma'ruum, waxayna ka samaysan tahay midabka iftiinka. samada afaraad oo magaceeda la yidhaahdo arfaluun oo ka samaysan midabka qalinka. halka samada shanaad iyaduna lagu magacaabo hayfuuf oo ka samaysan midabka dahabka. samada lixaad oo iyaduna lagu magacaabo caruus, waxayna ka samaysan tahay yaaquut. iyo samada ugu dambaysa oo lagu magacaabo cajamaa oo ka samaysan luulka. waxaan ahay walaalkiin الأستاذ دكتور مهندس قراء عاقل يعقوب فيصل آدم يعكو يرى، وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.